إسرائيل هشيسكي حماس إسرائيل هراء بربري qaarkii laga hayay yuhuudda loo dhiibay dhankooda ayagana kuwa Falastiin ay soo dhiibayeen waxa la arkay kuwa Falastiiniyiinta xilligaasi in xitaa Israa'iil ay ka carootay sida loo soo dhaweeyay hadiyada loo siinay iyagoo faraxsan la diray kuwa Falastiiniyiinta dhinacooda ka Israa'iil dhinacooda ka imanay Falastiiniyiinta ahana waxa ka muuqday dhaawac iyo jirdil si kastaba noqotay xabsiyada Israa'iil waxa ku jira oo la soo warinaya in ka badan 10,000 oo Falastiiniyiin waxana la sheegay inay gaarayaan 10,500 oo Falastiiniyiin oo ku jira xabsiyada Israa'iil ayaa waxa ay xirataa dad badan oo Falastiiniyiin oo ay qaar badan ku eedeyso argagixiso iyo wax la mid ah laakiin sheekada yaab kale ayaa waxa ay tahay waxa inta badan la qabsaday Israa'iil qabsto waa dhulka reer Falastiin daanta galbeed oo inta badan xoog ku haysato reer Gaza oo hadda tacdiye iyo dambiye dagaal lagu eedeynay Israa'iil inay ka fulisay ayaa ka taagan haddana iyadiiba waxay ku eedeynaysaa dadkii ay dhibaateynaysa inay yihiin argagixiso marka laga reebo kooxaha dagaalamayo iska badaa dadka caadiga ah xitaa mararka qaar intay qabsadaan waana sababta mararka qaar xabsiya maxaabiis looguma yeero dadka reer Falastiin ee Israa'iil ay qabsato waxa loogu yeeraa inay la afduuban yihiin dadkii la afduubtay ayaa la waayo nidaam cadaaladeysan looma soo maro ayaa lagu eedeeyaa Israa'iil haddana sheekada yaab kale waxa ay tahay Israa'iil iyada waxay isku aqoonsan tahay inay tahay nidaamka ugu dimuqraadiyadsan ee ka jiro bariga dhexe way ku faantaa inkastoo hadda adduunka oo dhan uu ka soo horjeestay dagaalka Gaza fadeexa weyn uu dhex fadhiisiyay qodobkaas meesha aynu ku dhaafno sheeko yaab leh ayaa galabta taagan iyo maanta oo aad loo hadalayo taas oo hadal ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu wuxuu ku dhawaaqay inay meel wanaagsan u marayso waxa uu ugu yeeray Israa'iisha weyn dhameystirkeeda oo macnaheedu ay tahay qubarada qaar iyo dadka qaar iyo maab hadda koor uu soo bandhigay Netanyahu Israa'iisha weyn waxa ku jirto ilaa iyo Sacuudiga dalalka qaliijka oo dhan baa soo galay intooda badan ama kulligoodba waxa soo galay Jordan waxa soo galaysa Syria waxa soo galaysa Lebanon iyo kuwa kale Egypt way ku jirtaa masaarida meelaha uu sheegay Netanyahu hadda inay Israa'iisha weyn meel wanaagsan u marayso waxa cajiib ah dalalkan iyagana baraarugaas kuma jiraan hadalkii Netanyahu wuxuu noqday mid warbaahinta Carabta inta xurta ay aad uga hadlaan ee aan gudaha Carabta joogin ilaan moogta dadka Carabta shacabka xitaa intooda badan waxyaabaha Gaza ka dhaca looma daaro aflaan musalsalo sheekooyin ruwaayado heeso shineemooyin waa mashquulsan yihiin ninka dhalinyarada Carabta markuu soo koro kuwa lacag teesto gawaari qaaliya dalxiis wadamada Yurub loo dirayaa qiyaaliye ku noolyiin kuwa fuqarada ahna shaqadii noloshii la halgamayaan qofka hadii nolol maalmeedkiisu ku mashquulsan yahay wax kale oo dhacaaba tabar uma hayo isagoo musiibadii dhex fadhiyay buu arkayaa hadda hadalkii marka ka soo yeeray Netanyahu waxa la leeyahay wixii uu qarqarin jiray hadda banaanku la taagan yahay banaanku si cad u soo istaagay markan Israa'iisha weyn ayaan diyaarinay oo meel wanaagsan bay noo maraysaa mishinkeenu leeyahay dagaalka Gaza markii hore wuxuu ku bilowday waxa ay ugu yeereen aarsashada iyo isdifaacitaan dagaalka Gaza 2 sano u socda hadda wuxuu ku leeyahay Gaza oo dhan la wada wareegana inkastoo aad ay uga soo horjeesteen ciidamadii oo khilaaf baan uu ka taagan yahay militariga Israa'iil iyo golihii wasiirada oo hogaaminay Netanyahu hogaamiyaha ciidanka Israa'iil taliyaha guud Eyal Zamir ayaa la sheegay inuu meel cad ka taagan yahay gabiyahanba dagaalkan iyadoo inta badan xisbiyada mucaaradka Israa'iil ay ku raacsan yihiin golihii wasiirada Netanyahu way kala qaybsan yihiin laakiin waxa la leeyahay ninkan wuxuu wataa mission ah Israa'iisha weyn Lebanon hadda dawladda Lebanon ayaa waxa loo adeegsanayaa inay la dagaalanto Hezbollah waxa lagu wadaa hub ka dhigis Lebanon waxa la rabaa gacanta in lagu dhigo marka aad fiiriso maamulka hadda ka dhisanna Lebanon waxa la rabaa in la qabsado meesha la isku mari laaya waa Suuriya oo laga hortaagan yahay oo iyada laftirkeeda uu raba inuu isticmaalo laba qolo kurdida oo aad barnaamij qaybtiis dambe ku maqli doonto Erdogan oo qaylinaya hadda Turki laftirkeeda waa ku bariyay dalalkii muslimiintii ku Carbeed hadda waa ku bariyay kurdida loo adeegsanaya iyo nimanka loo yaqaano Druusta oo Israa'iil ay walaalo ugu yeerto Netanyahu hadalkiisu ku aadan Israa'iisha weyn
maanta waxaa la leeyahay durbaba guuxa bilowday dalal aan markii hore arrimaha qasa ka hadli jirin baa bilaabay inay ka hadlaan kulamo degdeg ah la iskugu yeeray qaybta cajiibka waxay tahay Pakistan iyo Iran ayaa waxay ku dhawaaqayaan in la qabto kulan weyn oo dawladaha islaamku iskugu yimaadaan Iran laftirkeeda waa lagu socdaa biyo la'aan iyo abaar daran ka jirto xaaladdu meel adag bay maraysaa hadalka Netanyahu marka waxa la leeyahay wuxuu ku soo aaday xilli xasaasiya haddii markan ay kici waayaan oo isbedel u dhici waayo mar ay kacayaan ma jirta ayaa la leeyahay waayo walaalaha qiimiga loo qodobka isla markaan meesha ku dhaafno waxa inoo soo socdo laba qodob oo mid ku saabsan yahay Israa'iil oo musiibo weyn mar kale dhex fadhiso kuleel daran oo hore aan loo arkin heer kulkiisa heerka uu gaaray ayaan isla eegi doonaa iyo dhul beereed waxyaalo durbaba uu gaarsiiyay iyo dad la sheegay dabkaas inay wax ku noqdeen iyo qubarada oo ka digay dabka inuu sii faafi karo meel halis gaari doono waxaynu sidoo kale qaybta dambe iskula eegi doonaa Israa'iil iyo Turki oo mar kale madaxa iskula jiro Turkidii oo indhaha ku furay xaalad kale oo ku soo wajahan marka hore walaalaha qiimiga leh aynu ku yara hakan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go' lahayn dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sarreeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 540 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh Somnet Telecom isgaarsiinta jiilka cusub waa rajaynaya walaalaha qiimiga leh inaad qorateen oo aad la xiriiri doontaan waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenii fiidnimo aad baan kaaga mahadcelinayaa haddii aad ka mid tahay walaalaha qiimiga leh janaalka ku xiran haddaadan weli ku soo biirin fadlan subscribe dhe wixii macluumaadana halkaasi inagula wadaag waaya qaybta ugu dambaysa waxaynu ku bilaabaynaa qodobka ku aadan Turkida iyo Israa'iil oo mar kale madaxa isla galay Turkiga ayaa digniin u diray gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Hakan Fidan ayaa waxa uu si toos ah ula hadlay kooxda SDF ee Kurdida dalka Suuriya gaar ahaan Kurdida ku sugan dhanka bari ee dalka Suuriya waxa uu sheegay SDF in Turkiga aan la khiyaani kareynin isla markaana aan la mashquulin kareynin waxa uu yiri hadii Kurdida ay ka baxaan ballantii dawladda Suuriya ay la galeen iyo heshiiskii oo ahaa inay Kurdida reer Suuriya ku biiri doonaan nidaamka Ahmed al-Sharaa ee dawladda ku meel gaarka dalka Suuriya in dawladda Turkiga ay qaadi doonto tallaabo culus waxa uu uga digay inaysan mashquulinin ballanqaadka iyo hididiilada beenta Israa'iil ay u jeedinayso Kurdida waxa uu sheegay Turkiya marna ma aqbali doonto in khatar ay uga timaado dhanka Suuriya waxa uu sheegay inay ka warqabaan dhammaan dhaqdhaqaaqyada Israa'iil halkaasi ay ka wado isla markaana ay doonayso inay ku qalqalgeliso amniga Suuriya iyadoo markaa rabta inay qalqalgeliso guud ahaan ammaanka gobolka waxa uu sheegay Turkiga inuusan ka gorgortami doonin amniga gudaha dalkiisa waxa uu ugu baaqay Kurdida inay ilaaliyaan midnimada dalka Suuriya waxa uu sheegay Kurdida inay hadda hayaan dariiq aad u qaldan Israa'iil ayaa u muuqata marba dhinac inay ka soo galaysa Suuriya hadda markii hore dii aad maqli jirtay inay walaal ka dhiganaysay duruusta xaaladii duruusta markii Mareykan iyo Turkiya ay soo dhex galeen oo hadda la xaliyay ilaa xad dhinaca Kurdida ay haddana soo martay oo waxay u muuqataa koox Kurdiya inay ku soo hubaynayso dhanka ay Suuriya dhanka bari oo ay doonayso in nidaamka Ahmed al-Sharaa uusan marnaba salfadhiisanin bilowgii qabsashada dalka Suuriya Ahmed al-Sharaa iyo kooxdiisii markii ay qabsadeen Israa'iil warkeeda waa cadaysay waxay tiri marna ma aqbalayno kooxdan uu hogaaminayay Ahmed al-Sharaa
in ay hoosteena ku dhismaan ay awood yeeshaan. waxaan hubnaa buu yiri Suuriya iyo Lubnaan khatar weyn mar walba in Israa'iil ku hayso. meeshan marka hadda waxa kaaga muuqanayso fiilo isku xiran baa jirta iyo qorshe dheer oo Israa'iil wadato. Netanyahu iyo kooxdiisa dad qaar ay fududaysanayaan. Netanyahu waxa leeyahay kooxdiisa kuma ekaan doonaan Suuriya, Lubnaan iyo Falastiin. Turkiya, Iiraan lama huraan inay madaxa mar kale isla geli doonaan. Iiraan way isdiyaarisay oo waxay leedahay gantaalo inkastoo dhanka biyaha hadda laga soo maray marka la arkay military ahaan xaaladdu inay adag tahay teknolojiya loo isticmaalay biyihii baa hadda laga galay biyo la'aan daran baa ka jirto dhowr jeer ma barnaamijyadeena ku soo qaadanay. Turkiga waa uu rafanayaa laakiin waxa la leeyahay waxa meesha ka maqan midnimadii dawladaha gacanka iyo guud ahaan kuwa muslimiinta ee bariga dhexe